magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa hadda laga dareemayaa guux siyaasadeed oo ku aadan ansixinta golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle oo dhawaan uu soo dhisay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyadoona qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo la sheegay tiradooda inay gaadhayso 75 mudane ay ka soo horjeedaan qaabka loo dhisay golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle. magaalada Jowhar ayaa hadda la ciirciiraysa dad aad u fara badan oo isaga yimid qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya oo ugu horeeyo gobolka Banaadir iyadoona siyaasiyiin Jowhar ku sugan ay sheegeen in aysan macquul ahayn ansixinta golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle maadaama ay jiraan beelo saluugsan qaabka loo dhisay golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle. magaalada Jowhar ayaa jawi ahaan ka duwan sidii hore marka loo eego guuxa siyaasadeed ee hadda ku aadan ansixinta golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle. goobaha dadka isugu yimaadaan ayaa ah kuwa mashquul ah isla markaana hadalhaynta dadyoga isugu yimid goobahaasi ay tahay ansixinta golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle. haddaba isbedelka ku yimid magaalada Jowhar iyo buuxdhaafinta dadka ka yimid gobolada dalka ayaa waxaan weydiinay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba shacabka ku nool magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabelle. lama oga halka ay ku dambeyn doonto ansixinta golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle oo dhawaan uu soo dhisay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyadoona golaha wasiirada guud ahaan tiradooda ay tahay 57 wasiir iyadoona waxyaabo aad u fara badan ay isaga yihiin dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii xilka laga qaaday ee Cali Cabdullaahi Cusuble. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga caalamiga Kalsan Jowhar.